qisadii aad soo wada aragteen TikTok sida zaidka u qabsatay iyo gabadhii qisada ka sheekeynaysay iyo problemada jiro iyo maxaa la dhihi jiray rafaadka dhacay iyo qisadaas qof exactly ay ku dhacday iyo qaabka ay u dhacday iyo wuxuu dhanba waxa way ifraax su'aalaan ka weydiin doonaa maxaa la dhihi jiray su'aalaha qaabka ay ugu jawaabto iyo qaabkii warku u socdana si toos ah uga doontiin marka hore aan ku soo dhaweeyay ifraax ama magaca naanaystaada Rose adoo ku soo dhawaanayo waxaan ka rabnaa qiso aad u xanuun badan ka sheekaysay dadkan waxay wada sugayaan inay ogaadaan qisadaas qaabkay u dhacday iyo qofkay ku dhacday iyo say wax u jiraan inaan noo qeexdo dad badan xataa waxay isweydiinayeen oo intay luuq iga soo waceen dhaheen gabadhaas lambarkeedana si annaga caawinayno annaga saan yeelino waxyaabo badan macnaha horta dhacay marka jawaab ma siinin sababtoo ah waxaan ogaa sheekada qisada dhabta ah inaan ahayn qofta ku dhacday oo exactly inay ifraax ahayn marka ifraax waxaan rabaa sheekadaas halkay kala imaatay iyo waxyaabaha ay ku keentay iyo qaabka sababta sheekadaas ay u sheekaysay maadaama aan liftirkeyga hore ay sheegin wax saxda ah sida aad aragteen muuqaalkaas degdeg ah ku duubnay aan ku kala tagnay kadib laakiin ay sheegtay sheekada qisada qofka macnaha qof kale inay ula jeedo laakiin qofka ay sheegin ifraax waxa ka rabnaa qisadaas qofka ku dhacday iyo qaabka ay u dhacday iyo sababaha aad ugu sheekaysay qisadaas maxay tahay horta walaal macaan horta hore isku baranay baa nuurow maxaa ahaa gabar qisooyinka aad u daba taagan ama hamigeed ahayd inay qisooyinka ka faallooto dumarka dhibaatada haysata teeda labaad qisadan anoo jeclaa inaan falanqeeyo mise faahfaahiyo jaanis isku heli weynaa muddo dheer ka bacdi horta taa habeenkii markaa sameynay isla habeenkii ka bacdi horta aniga magaalada laga kaxasta baadiye malaaligay 2 bilood baadiye ku maqnaa familkeyga daaniga shaqiyeen ما فهمت لو مالنا لو بلاد لو مال محل لو بلاد مقالة اللي أقرية حرية دي اللي جري وموبل اللي قاضي يعني حرية دي هرتورة هيستعد على إيدي ذا حير هذا اللي سلك جري إن اللي يدلو ونفط أنا اللي يدافع في ميل أهان تيدا لو كنت شتا هرت إلها أمر كسوع علاقة قرن مدعان إن تاس نرتع إن أيضا نفتر كذا فايدة وين أيجا صورة بحدي مركان قصة السمية dhiirigelin waa ku helay dad soo caayana waa arkay dad igu amaanana waa arkay dad garab taagan waa arkay horta aad iyo aad ugu mahadcelinaa inta caasay inta amaantaba teeda kale qisadan waa qiso ku dhacday gabar saaxiibanahay marna gacalkayga marna garabkayga aan jeclaa inaan dhibaatadeeda inay sheegato ee awood u heliyaysa ma fahanta had magaceedan kasto aan dhahaynin heblaayo mise hebel aan ka qaxeen bulshada weynta hortooda waxaan leeyahay dhibaatooyinkan gabdho badan ay haysato way jirtaa إن حالة قبله هذا نوع عسل كلن تام فيلم هذا كبقين هتلر هتاعته كله أظن عندنا قابية لأن حالة عتكا يعني كسومالية كدعسو كل باني وحنا عدينا يعني إنه أبي سيها ألا أمين كريم إنك استادي أكو جرت أكو دهين ما وعادي مرة هذه قصة إماته وحن أنا قاب وين كقادنا يا أما أرمها هذا أكشة كسي صوبته وحن أها قصة خوف كدوي وأنا أنت بدن والله صعدا قصوين كنوع عسو كل قبلها يعني كل عن ayna la socdaan gabdho badan xataa ay ku dhacday qisooyinkaas qaarna macnaha ayna ahayd qisada noocaas oo kale inaad dadka xataa ka dhiirigeliso laakiin dadka waxay isweydiinayeen gabadha qisada ay ku dhacday nookeen aaway aan caawino aaway ninka saas yeel aan raadino barnaamij noocaas oo kale soo ifbaxday marka adiga gabadha kulay qisada ku dhacday maxaa isku eeday horta gabadha waxba isku malihin gabar saaxiibo iyo Soomaalinimo iyo diig Soomaaliyeed isku keentoon baanaay Soomaaliyeed haday caawinayaan hal mid un ba ka codsanahay ga caawiyaan in waxa leeyahay waxa iga caabisaan oo kaliya ina clipka aan boonbooninaysan aadaysan sidan waay ayada saan iska yeeshay ina iga dhaafaan fiyuuska lagu raadsanayaan inta niijab waxay ku noqonaysaa gabadhii markaas qisadeeda soo warisay aasho ah sax way ga aamin baxday waxay tiraahdo uma maleynayna tiraahdo qisa ani aan leeyahay ina soo qaadanaysid marna waa soo dhileecanaysid inkastoo eed fara badan ee iga inkastoo magaceeda aadan sheegin inkastoo magaceedana ina xaqeexa diyaar ma ahi maantana kaal qeex ma dhahaayo ma faanta qofku aamino waa qof naftiisa ku dhiibo kala marka teeda laakiin ma la isdhihi karaa gabadhu markii hore ayada xaaraan mayn gelin laakiin waxa lagu siray macnaha waxa lagu siray kaliya maadaama guurku ay waalid ka qarisay laakiin meher way sameeyeen oo qudbisiro waxa dadka ay u yaqaanaan oo aalaba xitaa wadaadada ay sameeyaan qofku wax mehriin u yahay qof diin bartay oo wadaad ah oo markaas diinta markaas ku xil dheer laakiin qaladka gabadhaas ay sameeyay kaliya ay tahay inay waalidkeed ka qariso oo dambi ayna gelin inkastoo ay dhihin ninka waa ka macnaha waa kala zinaysanay oo si macnaha bareer aan zino u sameeynay oo ay tahay in aad macnaha ismehersateen oo kale marka inkastoo taas ay jirto oo gabadha la dhigi karo yani dambi waxa ku dhacday oo zina ah
laakiin qodb siro meher markaas qarsoon ay sameeyeen aanan haboonin aan isleeyahay ani shakhsiyan ahaan nuur abku ahaan hataa isleeyahay dambi waa xitaa in hataa meher qaldan ama meher waalid aan ogeyn la sameeyo waa qalad laakiin ma isleedahay maxaa la dhihi jiray ayada laftirkeedu Soomaalida xitaa daleeceen ka imaato in meeshas qalad weyn uu jirin gabadha ay meher sameysay saa noo sheegtay horta aad iyo aad nuur oo ku mahadsan tahay tan la aaminsan yahay meherka inuu markii la qarsado la marxado la dhaho xaraam waaye ma fahantaa culimada badigooda waxay ku qeexeen gabadha haduusan aabaheed joogin inaan meherkeeda horta u banaan yahay ma fahantaa teeda kale gabadhan gabar aabaheed nool yahay ma ahay aabaheed uu dhintaa markuu aabaheed nool yahay mise aabaheed wuxuu dhalay taagan yihiin markaas meherkeeda waa la isku qabsan karaa gabar agoona ayadaas bixin karta say aan ila tahay taas culimada horta loo bardhigayaa ani culimo maahi waxna kama sheegi karo teeda kale horta waxaa leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed festival waxa lagu gaadayo waxa waayay qodbisaro ninka inuu kula sheekaysto asoona meel dheer kula gaarin xabiibtiga ku jecel qaali inta nolosha sakaarawa sakaarawa inuu ku doono nolol qiyaali dhaxda ka geliyo oo ku dhaha birina as qodbisareysan birina cidina u imanaya ani ahaanteed haday ugu dhici lahayd mise haday qabsan lahayd taas oo kale cidna kama qariyeen kula tagina ku dhigaa social media la soo istaagila adii la shalawada sida ugu sameysay maanta niga soo garbax ma faanta marka waxa leeyahay qodbisiro hadaa maqasho tadaba geed ka guur haduu ku dhaayin hooyada iige mise haduu ku dhaayin hataa hooyo aab lahayn Soomaali weynta dhexdooda kugu guursanaa masaajidka dhexdiisana gee gurigeyga ana ilaahow maradaada igula seexaduusan ku dhaayin waxa leeyahay gabar iskaga carar insa hore ugu baratay insa hadda igu taqaano horta ani qisooyinka gabdhaha ku dhacayna ka faaladana aad oo jeclaysa ku sheego haddana qisooyin waa soo sameeyay inkastoo ani aad horta xamraba kaaga sitay waxa ka silaa waxa isku taaganahay inax ma timaada ka sitoo tagamiyo masada iga daba timaaday alla waclam teeda kale waxa leeyahay soo boqda King Sami asnaftirkiisa qisooyin la soo sameeyay waxa idin leeyahay Soomaaliya soo dhawaada naanaystaada igu celi Rose waa gabar inta badan sameysa sheekooyinka qisooyinka oona macnaha inta badan jacaylka ama dhibaatooyinka dumarka loo geesta yani ka dhiirigelisa sheekada hadda ay inta badan maalmahan social media qabsateen Rose ma ahayn gabadha exactly sheekada ay ku dhacday laakiin waxay ahayd gabar ka sheekeysa inta badan qisooyinka ka dhaca macnaha ama gabdhaha Soomaaliyeed ku dhaca difaacna u gabdhaha Soomaaliyeed diyaarna waa inay mar walba u heeliso mid kale qisooyin badan oo sameeyay jiraan isla muuqaalkii hadda ay sameeyay muuqaal kale ka sii badan TikTok-gayga xitaa waa ka soo heli kartiin waxay kale wax la sameeyay wiil lagu magacaabo Sami oo magaalada Kismaayo isaga ku nool qisada ugu dambeysay oo ayadoo macnaha maxaa la dhigi jiray barnaamijyo aad kulay waa soo daawan kartaan marka waxa idin leeyahay warka macnaha meelaha qaar loo qadqaadayna hala joojiyo gabadhan caawinaad gooni maanta u baahanta ma jirto exactly waxyaabaha kaliya ku caawin kartiin waxay tahay inaad gabdhaha Soomaaliyeed aad idinkan dhankiina ka dhiirigelisaan aadna ku dhiirigelisaan in ay waxyaabaha qaar ka fogaadaan ugu dambeyn maxaad baaqi u diraysaa gabdhaha Soomaaliyeed ugu dambeyn waxa baaqi u diri lahaa oo dambaal uga dhigi lahaa gabdho waxaan dhigi lahaa iduraayo idan qaadan aakhiradiina ha ku beelina yaana leedihin duwaya ku geena mise Norway ku geena sida hore u baranayba jirkaaga ay soo doob mis qodbira ila samee misa kaalay hal maalin imo yaa lagu gaadin adna walaashay baa tahay mar walaasha waa ahay mar waxaan ahay gabar dhali doono marna waxa tahay gabar ila dhalatay waxa leeyahay gabdhahayga waa u baaqayaa ka soo laabto dad xuna ku socotaan ilaahay hana soo wada hadiye dhamaan saa u nahay halka caawimaada idin ka rabo cayda iga daaya kaliya hadaada wax ii awoodin walaal Allah ku soo hanuuniyo waa dhigi kartaa hadaa wada xun ku socdo kaliya waxa anisa ay faaleenis ama ay kala falanqeenis iga daa maanta markan Kismaayo imaado horta wax badan baa kala kulmay eelbarka lugta marka soo galiyo wallahi si la dhaay madaxweynaha soo socdo kala la soo dhibeen intaas caay un baa lagu soo dhibeynaa orka lahayd aaway calooshaadi aaway maxaa kugu dhacay macna ilmaha hada heer hada waxa la gaar miska soo xaqdeen baaritaan ku geenayna dhaqtar nigay gabdha inay dhahaan hooyaday matid aabahay matid walaalkay matid walaashay matid naftaada maaha ani aad isku qabri manihin naftayda kaartaada ka tali daawade sheekooyinkan hadda ay soo bandhigto aragteen iyo kuwa la mid ahba way soo wadaa insha Allah aydan TikTok leedahay waxaan ku soo meeshan garan doonaa TikTok-geeda meelaha qaar oo muuqaalka aan soo dhigi doono video ga xigta kulmeeno sidaas iyo nabadgelyo